iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay cabashooyin ballaaran ka soo baxayeen cisbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa maanta waxaa soo gaaray wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Gafaadhi isagoo kulamo la qaatay mas'uuliyiinta cisbitaalka weyn ee magaalada Burco kulamadaas oo kaga risanayeen cabashooyinka istaba jooga ee bilihii ugu dambeeyay ka soo baxayay cisbitaalka weyn ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer wasiirku markuu kulamadaas la soo qaatay mas'uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Togdheer way warbaahintu su'aalo ka weydiisay ayuu ka gaabsaday su'aalihii warbaahinta gobolka Togdheer wasiirka ayaa markii dambe ka soo baxay kulankaasi ee warbaahinta ka gaabsaday ayuu halkaasi ka tagay cabashooyinka istaba jooga ay ka soo baxay cisbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa ah qaar muddooyinkii ugu dambeeyay soo socday laakiin maanta oo laga fadhiyo wasiirka caafimaadka Soomaaliland inuu wax ka qabto cabashooyinkaasi ayaan wali aanay waxba ka suurto gelin Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah ee Cable TV Burco.